magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka waxaa lagu qabtay shir wacyigelin ah oo looga hadlayay rabshadaha burburka qoysaska iyo weerarada mindiyaha. Shirkaani ayaa waxaa soo qaban qaabisay hay'adda Annie Charity Foundation waxaana ka soo qayb galay madax ka socota safaaradda Soomaaliya, baarlamaanka Hamburg iyo ururada Soomaalida ee Jarmalka. marka dhammaan waxaan leeyahay iyo marti sharafta kalaba dhammaantiin waxaan leeyahay soo dhawaada munaasabadan ujeedadeedu waxay tahay sida halka aad ka arkaysaanba wacyigelin in la joojiyo rabshadaha waayo sanadihii ugu dambeeyay waxaa kusoo badanayay Jarmalka rabshadaha gacanka hadalka gacanqaadka taas oo ay dad badan ay naftooda ku waayeen dad badanna ay maanta ay leeyihiin dad naafa ah marka haddaan nahay dadka Soomaaliyeed dalkan ku nool ee nolosha soo raadsaday waxaa kasoo horjeedaa rabshada nooc walba. haween u ololeeya xuquuqda bulshada iyo caafimaadka dhimirka ayaa si xooggan u xusay in rabshaduhu saameyn xun ay ku yeeshaan dumarka iyo dhalinyarada gaar ahaan kuwa ku dhiban baraha bulshada. maadaama laga hadlayo dhinaca midida maanta iyo isdagaalka iyo waxaased waxaan leeyahay in aad waxaad soo marteen horta hore meel aad u dhibaato badan haddana waxaa noo soo socda insha Allah filin looga sheekeynayo tahriibka dhibaatada uu leeyahay wax soo aragteen waxa aan markastaba aan isweydiiyaa waqo comes to look at the Somaliland and I look in Kenya. I know Somali men have given their ladies opportunity. For me, where I come from, we never go to one Rendile MP who is a lady. But next year, 2027, I am going to try because it is. safiirka Soomaaliya danjira farabadan iyo xildhibaanad Arina waxay ku booriyeen bulshada inay ka fogaadaan rabshadaha iyo dambiyada iyagoo ka digaya cawaaqib laga dhaxlo sida xarig wax muhiim ah gabar Afrikaan oo walaasheen inay maanta nadhax fadhido oo ay dhageysanayso anaga community-geena waxaan ka wada hadlaynaa We are her community too. So, back to back, Africa. So, marka waxaa la rabaa laba shay inaad xaqiiqsataan. Ka hortagga gacanka hadalku wuxuu ka bilowdaa tarbiyaduna kama qiimo yara markaad shaqo aadayso oo lacag ku raadinayso lacag raadsanayso Jarmalka dadkaas oo si sharaf leh ugu nool ka shaqeysta waxna ka barta oo wadanka si fiican ugu nool taasoo ka soo duuliya waxaa noogu xigtaa in maaragtay dad qof kasta oo halkaan oo Soomaaliya jooga uu yahay qof maaragtay safiir ah magacii Soomaaliya wata loogana baahan yahay inuu maartay si sharaf leh wadankan uga noolaado uga shaqeysto magacana uga soo jiido Soomaalida. shirkaani ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay baaq nabadeed iyo wacyigelin loo jeedinayo bulshada Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Jarmalka gaar ahaan Hamburg si ay ugu midoobaan midnimada iyo nabad waarta.